wasiirada sharafta badan iyo gudoomiyaha iyo taliyaha iyo dhammaan bahda warbaahinta waa salaamantihiin marka hore waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaa dhacay in nin argagixisada ka mid ah oo inta jaaka soo hubeeyey oo ku tuuray ciidanka booliska Soomaaliyeed sarkaal ka mid ah ku dhaawacmay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad siiyo asagina ninkiina waa baxsaday oo markuu jaakada tuura waa la qabtay marka ilaahay sarkaalkaas caafimaad siiyo waxay ka mid tahay khataraha cusub oo nagu soo kordhay in qof inta jaakad soo xirto oo ku dhex tuura dadka uu ka cararo waana wax u baahan in laga qaato feejignaan cusub taas markaan ka soo gudbo sida aad ka warqabtaan dawladdu markii ay lahayd isu soo baxa iyo isu imaadka faraha badan waa in la joojiyo oo la yareeyo oo laga bilaabo golihii wasiirada in lagu qabto Zoom waxaa lagu dhisay qiimeyn la sameeyey oo xag caafimaad u badan iyo xag amni intaba qiimeyntaas la sameeyey oo aad loo soo daraaseeyey waqtina qaadatay lagana wada fariistay ayaa lagu saleeyey in isu soo baxyada iyo isu imaadyada la joojiyo wixii aan laga maarminna aad loo yareeyo qiimeyntaas ayada ah wax ka dambeeya ma jiraan sideedii bay u taagan tahay waliba waxaa dheeraad ah in uu soo kordhay khatarta caafimaad soo korortay oo sida aad ka warqabtiin dhammaantiin warbaahintu ka warqabto dhimashadii coronavirus oo soo korinayay ee aad iyo aad u soo badatay oo wasaaradda caafimaadka iyo madaxda guud ahaan xukuumaddu habeen maalin aysan nasan oo lagu mashquulshan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa waadinka maqlaya mar walbaba qaylada ambalaasku inay habeen maalin taagan tahay taasi waxay nagu sii adkeynaysaa marka in la sii yareeyo isu imaadka in la sii yareeyo wax kasta oo dadka isu keeni kara si khatarta caafimaadku ay u yaraato midda amni ee maanta ka hadlayna ee qofka dadka jaakada tuurayana ayaduna waa dhib nagu soo kordhay oo nagu sii dhiiri gelinaya aanan dhihi karin bulshada Soomaaliyeed meel hees ugu timaado waayo mas'uuliyad baa na saaran mas'uuliyadna saaranne waxaan u walwalaynaa sida waalidku u walwalo carruurtiisa u walwalo ninka mas'uulka ah bulshada dhan ayuu waalid u yahay sida waalidku u walwalo carruurtiisa oo khatar kasta ama ha muuqato ama ha soo socoto ama ha filo oo uga hortegayo oo waxa ugu badan oo dadaal u bixinayo ayaa looga baahan yahay dawladdu inay intaas oo kala bixiso waxaa dhici karta dadka kale mas'uuliyaddu saarayn inaysan saa u fiirin inaysan saa u arag oo ay ayagu u arkaan dana ay ayagu leeyihiin oo gaar oo u muuqda inay ayagu raadsadaan hadhowna mas'uuliyadda anaga nagu soo celiyaan sida aad ka warqabtaan banaanbax guud ahaan waa la joojiyey ama ha noqdo mid dawladda lagu taageersan yahay ama ha noqdo mid looga soo horjeedo banaanbaxna sideeda dawladduna waa soo saari kartaa dadka mucaaradkana waa soo saari karaan wax weyn ma aha in dawladdu soo saarto ama mucaaradku laakiin kulligood waa sharci darro ama dawladda ha lagu taageero ama ha looga soo horjeedo banaanbax oo dhan waa sharci darro ciddii samaysane hadday ayada isxilqaanto maahay dawladdu uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimaddu waa ka sii duwan tahay gobollada caasimadda waxaa jooga mas'uuliyiinta dhammayd waxaa jooga dawladdii waxaa jooga safaaradihii hubka u badan baa yaalla mudaaxaraad hub wata oo hub dad hubaysan wataan na sideedaba lama ogolaa karo haddii ay dhacayso arrintaasi qiimeyn kale iyo cudurkoo naga yaraada iyo dhibaatadoo yaraata iyo arrinta amniyoo yaraata iyo qiimeyn kale unbay ku imaan kartaa go'aanku waa sidiisii qodobka kale wuxuu yahay dad waxaa jira isxilqaamay sidaad ka ogtihiin baaqi bare ministerku uu soo jeediyey maalinta jimcaha oo uu ku baaqa wada hadla inuu furan yahay cid walba in lala hadlo inay furan tahay cid walba oo wanaag doona wax kasta la iska afgarto baaqaas bare ministerku soo jeediyey sidiisii u taagan yahay saacadan iyo saakay iyo xalay iyo habeen horena bare ministerka iyo wasiirada iyo intii kale oo mas'uuliyiin waxay ku jireen in lees afgarto oo laga wada hadlo waxa taagan welina waa socotaa cid albaabkaas waa furan yahay sida bare ministerku uu baaqo u furan yahay waa haddeerta saacadaha aan ku jirnana wada hadalku waa socdaa waana wada hadal see wax lagu wanaajiyaa see wax lagu toosiyaa ma aha wax go'aankii dawladda wax looga bedelaa maaha go'aanka dawladdu go'aan iskama qaadan karto haddaan daraaso iyo qiimeyn aan wax lagu soo dhisin marka aad iyo aad u mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ugu baaqaynaa
xilli waxaan ku jirnaa warbaahinta cid walba ay ku gaarsiin karto fariinta ay wado maanta warka hadda aanu aan jeedinayo mudaaharaad uma baahni mudaaharaad warbaahintiina anaa ku filan inaad gaarsiisaan malaayiin Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan intaana iga filan uma baahni soo bax inaan sameeyo waxaan ugu baaqaynaa marka guud ahaan dawladda iyo dadka kale dawladda ku jirna oo aan dawladda ka tirsanaynba inay adeegsadaan warbaahintan hadda waxaan arkaynaa 40 kaamira ay hortaagan 40 kaamira waxay ku filan yihiin 5 qaaradood wixii fariin oo jira inay gaarsiiyaan wax baahiyo loo qabo maanta inaad dad isu keeno oo aan ila aniga dad isu ka imaada si aan u hadlo haba yaraatee ma jiraan dadka aan u baahana waa kaamirooyinkan kaliya kaamirooyinka bisan u baahana ayagaas warkii gaarsiin kara meel kasta waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa guud ahaan dawladda aan oo ka bilaabay mas'uuliyiinta dawladdan ka bilaabaya kuwa kale dawladda ka tirsan ka bilaabaya isu soo bax lama ogola qofkii war qaba qofkii fariin qaba caburin ma jirto waa furan tahay wax caburin leeyahay ma jiraan wasaaradda amniga oo aanu mas'uul ka ahay haddii ay jirto qof la caburiyo hadli weyda waa noo sheegi kartaa ma jirto caburin warkiina ku gaarsiiyo warbaahintan sharafta badan meel walba iga gaarsiinaya aad iyo aad u mahadsantihiin laga soo weydiiyaa rabaa ku saabsan arrinta shirka jaraa'id midda koobaad amniga qofka isqarxiya maanta oo jaakada watee fakaday sidee waa shaakad ku cusub dadka Soomaalida amniga marka laga hadlayo qof jaakad wato jaakad tuura kadibna uu baxsado say ku dhacday xogta dadka la wadaag midda labaad wasiir muqaarad ku banaanbaxo laamiyeen hore u laamiyeen dibadda ka dhalatay ma jirto meel wada kale looga bixi karo xaaladan adag ee dadka Soomaalidu ay aad uga walaacsan yihiin oo haysan waa maadsantahay horta birka kooba ninka jaakada inuu tuuro go'aankeeda asaas kale asaga tuuray laakiin sida inoo sheegeen oo taliib hadda la taagan yahay waa la soo qabtay waana xiran yahay taas horta waa taas dawladda mas'uuliyadeedu waxa waaye inay ka hortagto wixii dhibaato keenaya haddii se ay dhacdo in dhibaatadii qofkii ilaa adiga haddii qadda qofku dharbaaxada boolisku siima ogeyn inuu ku dharbaaxayo qofku siima ogeyn laakiin markuu ku dharbaaxa la rabaa inuu kaa qabto marka shaqadoodu waa qabsadeen waana ku ammaanan yihiin waana mahadsan yihiin booliska iyo nabad sugidda iyo militariguna waa kuwa aan habeen iyo maalin ku jiifno oo shaqada ugu sharaf badan uguna wanaagsan haya oo dhammaanteen naga karaamo badan naga sharaf badan waa inaan ku mahadinnaa waa inaan ku ducaynaa waa inaan ogaanaa inay u taagan yihiin nabadeenna habeen iyo maalin idinka warbaahintana waxaa laydinka rabaa waddanka dhismihiisa tiiraad ka tihiin muhiima waa inaad wax bulshada anfacaya oo dalkeena dhisaya oo aan dib u celinayn oo bulshadu u wanaagsan inaad ka shaqaysaan haddii kale warbaahintu waxay isu beddelaysaa haddaysan taa ka shaqayn wax ka dhinac kale aadaysaa waana ku kalsoonnaa 100% warbaahintana saaxiibaan la nahay dawladduna waa la saaxiib waadna ogtihiin bare minister Roble inuu 5 wasiir oo ka tirsan warbaahinta inuu sameeyo taas waa qodobka labaad banaanbixi dawladdu qiimeyn iyo daraasay ku dhista go'aankaas wax iska bedel ma jiraan haddii qiimeyn dambe dib loogu noqdo haddii dawladdu ay qiimeyn kale ku noqoto si kastaba ha ahaato ama wadahadal ku timaado ama caafimaadka la qiimeeyo iyo amniga noqoto waa ka hadli doonaa laakiin warku waa warkii hore dadku waxaad ka wacyigelinaysaan COVID-19 banaanbixii aad joojiseen toddobaadkan ka soo gudubna wixii ka dhashay waan naqaanay idinkoo dadka badbaadinaya haddana mucaaradku way horkacayaan dadkan oo banaanbuxu way ku dhawaaqeen oo sheegeen inay ka dhabeynayaan muqdisho ka qabsoon doona sidee dadkaas badqabkooda ku badbaadinaysaan mise markaa xabadaas ugu jawaabay badqabka horta kow adinka laftiinu u sheega bulshada u sheega bulshooy warbaahintii annagaa codkiina qaadayna annagaa fariintiina qaadayna dhibaataha abuurina caafimaadkiina khatar ha gelina amniga khatar ha gelinina walaalayaalow guryihiina jooga fariin wixii annaga noo dhiibta idinku badhaha mudana wasiir waad mahadsan tahay magacaygu waa deeq macallin waxaa ka socda telefishinka Xisaab TV waxaad sheegtay in gebi ahaan la joojiyay wax banaanbaxays dalka ka dhici karin mucaaradkuna waxay sheegeen banaanbax inuu dhici karo ku jiida gacmo daaris waay ma waxaa rabtaa markan inaad xabad ku ridaan mase xal kale oo isticmaali doontaan horta markii hore warka aan ka hadalno annagu banaanbax kama hadlo waxaan ka hadlay isu imaad oo dhan golaha wasiiradan ka bilowna Zoom lagu galayaa idinka hadda isu imaadkiina qaabkan laftiisa waa la isku haystaa laakiin annagu wacyigelin baan wadnaa moogiyo sidaan xataa raali kama yihin wixii duruuftu keento ama markaa kooban waaba la garta laakiin annagu banaanbax mariga mabaan ogeyn cid naga soo codsatay cidna la wadaagta maba jirinba waxaan ka hadalnay isu imaadan ka hadalnay ama ha noqdo mid xafiisyada ka dhexdiisa ka dhaca ama mid banaan ka dhaca